dhinacyada ayaa dhan kastaba kan kaleeto ku eedeynaya in ay sabab u yihiin in xaalku uu sii xumaado. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cali Xoosh ayaa VOA-da u sheegay in dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda ay marar badan isku dayeen inay xiriir la sameeyaan maamulka Puntland madaxdooda, balse ay ku guuldareysteen helistooda, gaar ahaana wakhtigan uu socdo dagaalka ka dhanka ah Daacish ee buuraha Calmiskaad ee maamulkaasi ka jira, ayadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba uu sheegay inay qayb ka ahaayeen isku dayadaasi lagu doonay maamulka Puntland in gacan loogu fidiyo. waa arrin muxuu ahaa xogo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriiradooda intaba muxuu ahaa baaridu ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay. anigu ma rabo hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego, laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba. dhinaca maamulka Puntland, wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Maxamuud Ceydi Dirir ayaa isna sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gabtay doorkeedii dagaalka ka dhanka ah Daacish, waqti beesha caalamkuba ay deeqaha loogu talagalay dagaalka argagixisada intooda badan ay ku shubayaan magaalada Muqdisho. dowlado badan baa hub maartay keenay dalka Soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafrina xabadu karin oo maartay loo yaqaano armoured maartay vehicleska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixisada in lagula dagaalamo. waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixisada lagula dagaalamayo inay geyso, inay siyaasad ku xidhan ma ahayn. siyaasadda dowladiska Soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay, saddex aragtiyood baa taala. aragtida federalismka ah oo dastuurka kumeel gaarka uu qabay oo Puntland maartay ay qabto ayaa jira. aragtida centralizedka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awoodda xamar ku soo urto, dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa. aragtida kala tagga ah oo Somaliland qabta ayaa jirta. marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas'uuliyad gaar ah saarayd. waxay ahayd meeshii ay dhiile ka jirto rasaasta hubka inay geyn karto aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn. muddo dheer kadib Daacish ayaa dagaalka ay ka wado gobolka bari iyo buuraha Calmiskaad. awoodda Daacish waqtigan waxay u muuqataa mid tan iyo markii dagaalku uu bilowday December ee sanadkiina tegay dabayaaqadeeda isu soo tareysay oo soo xoogaysanaysay. haddaba iyadoo aysan jirin gacan midaysan iyo dagaal wadajir ah oo dowladda dhexe federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ah, Daacish xal ma loo heli doonaa oo dagaalka ma looga adkaan doonaa? waxaanu filaynaa inaanu ka adkaanay, waxaan caddaynayaa inaanu ka adkaanay, waxaan filayaa dagaalka inaanu soo afjari doono muddo aad u kooban. hadda masaafada hadhay ay gacanta ku hayaan waa dhulaan 40 kilomitir ka badnayn. waxaanu qiyaasaynaa 15 kilomitir oo ka mid ah oo keliya inay ku dagaalami karaan, inta kalena uu isu bedeshay dhul bannaana oo gaadiidka culus inoo gelayo oo qalabka askartu qaadanaysa culus inoo gelayo. waxaanu rajaynaynaa sida ciidamadu hadda ku socdaan 10 maalmood ee soo socota inaanu ka takhalusi doono. dhulka buuraha ee ay ka dagaalamayaan Daacish ayaa waxa ay yihiin kuwo taxana ah, sidoo kaleetana cabsida ugu badan ay jirta ayaa ah xilli ajaanib laga laayay kooxda oo la dareemaya inay jiraan dad ajaanib oo badan oo ka barbar dagaalamayo suurtagalnimada in berri ay kusii dhex milmi karaan dalka intiisa kale markii laga baabi'iyo buurahaasi Calmiskaad. Ambassador Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa ka warramaya mustaqbalka kooxda Daacish haddii lagaga adkaado dagaalka buuraha Calmiskaad iyo sidoo kaleeto taariikhda Al-Qaacida iyo Daacish ee dunida inteeda kale ay ka soo bilowdeen oo waqtigan ay haraadi ku sii yihiin amaba ay ka sii dhammaanayaan. horta waxaan wax natural maaha, waa dad afka carabiga waxaa lagu yiraahdaa ghulaat, waa dad ku wareeray diinta. waxa ay haystaan diin maaha. taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen, laakiin hadda ma maqlaysid iyadoo laga sheekaynayo. footnote to history waaye. marka waxay naturally way iska dhimanayaan haddii xataa aan ciidamada Soomaaliyeed aysan la dagaalamin shabaab iyo Al-Qaacida, si natural ah ayay u dhimanayaan. dagaalku marka wuxuu faa'iido u leeyahay keliya intay dhibaatana yeelayaan, si dhibaatadooda aan isaga moosno, aan isaga joojino, waa in dhaqso lala dagaalaa oo dhaqso loo gabagabayaa. laakiin haddii xataa aan lala dagaalin dalku uu yeesho nidaam, ama Soomaaliya ha noqoto ama ha noqotee, oo meelaha firaaqa ah la buuxiyo
oo dowladnimo iyo maamul wanaag soo noqdo shabaab iyo daacish waa iska dhimanayaan. alqaacida al-shabaab iyo daacish ayaa sida wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya uu ka dhawaajiyayba waxaa inta badan dalalkii ay ka bilowdeen ee bariga dhexe ay yihiin waqtigan kuwo aad looga soo ciribtiray amaba ay haraadi meelo yar ku sii yihiin. hase yeeshee Soomaaliya gaar ahaana gobolada dhinaca bariga ee Puntland oo beesha caalamku si weyn isha ay ugu hayso dagaalka ka dhanka ah daacish ee waqtigan socda ayaa cabsida ugu weyn waxa ay tahay dhinaca kaleeto khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland u dhaxeeya oo sayteen kara soo afjarista kooxdaasi dagaalka wada muddada ku siman 40 cisho.